tartankan ayaa waxaa soo agaasimay wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo sportska waxaana ka qayb galaya naadiye ka socda dugsiyada sare ee Puntland oo ay tiradoodu gaarayso 24 naadi waxaana guud ahaan ka bilowday gobolada Puntland ee kala duwan ee ka kooban 8 gobol waxaana xafladii furitaanka tartankani ka hadlay kana soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada sportska iyo shaqaalaha Maxamed Nuur Cagweyn waxaana uu sheegay in ujeedada tartankani ay tahay sidii loo mataaneyn lahaa tacliinta iyo waliba ciyaaraha isla markaana dhalinyarada looga wacyigelin lahaa barnaamijyada iminka dhalinta Soomaalida ay badankooda ay ku hayaameen ee habro-cadbadeeda iyo falalka amni darrada ah dhalinyaradana maskax nadiif ah oo la iman lahaayeen marka xiga muhiimadda ciyaaraha kale ay leeyihiin heer dugsiyada sare ah waa la idinka sheekay waa garanaysan waxa weeye wax badan baa la yiri waxaan sameyn jiray annagu tiimam iyo waxba bannaanka laga qaadan jiray tiimamkaas ciyaari jiray tiimamku ruuxooda dugsiyada ayay ka iman jireen hadda waxaan rabnaa dugsiyada sare in ay ciyaaraan halka wixii markaa tiim dhisanaya halka inay ka xushaaneen sida adduunka marka la ciyaarayo looga qaato qofka ciyaartooyga looga xusho insaan la idin xushaan rabnaa tiimam tayale inay soo baxaan baan rabnaayo tiimamkuna ay dugsiyada ka yimaadaan in ay ka iman suuqa dad laga qaato tayada nin mutacallima oo sportsiga u jajaban in la idinka qaato waxa la rabaa in la idinka qaato ciyaaraha xiriirada kala duwan sida kubadda kolayga laliska ciyaaraha fudud waxaasoo dhan waxa rabaa halkaas in la idinka doorto ninkii orodhaya ninkii basketball ciyaari kara volleyball kii ciyaari kara waxaan dugsiyada ka xulno dugsiyada Puntland waxaan rabaa in la mataanayo la isku xiro ciyaaraha iyo waxbarashada dugsiyada inay tartamaan magaalada gudahooda meesha dugsigu la iska ciyaaro in dugsi waliba oo dugsi kale la ciyaaro secondary waxaa sidoo kale kulankaasi inta aysan bilaaban ciyaartii shalay ka dhacday garoonka Mirawaare ka hadlay Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo ahaa mas'uulkii ka socday hay'adda Save Children waxaana uu sheegay in abaalmarino qaali la guddoonsiin doono dhalinyarada isla markaana ujeedada wasaaraddu ay tahay hay'adda Save in dhalinyarada laga wacyigeliyo muqaadaraadka iyo waliba falalka anshaxa daran sida burcadbadeeda iyo waxyaabaha la midka ah ciyaarahan dugsiyada sare ee Puntland oo dhan bay ka dhacayaan sida uu sheegay Juula oo furitaanka sameeyay waxa loo qabanayaa 20 secondary school oo ku yaala Gaalkacyo 24 hadda feeskan hore waxa noqon doona 20 ilaa 24 baan rajaynayaa inay noqdaan waa Gaalkacyo Garowe Qardho Boosaaso Baran Laascaanood iyo Buuhoodle ujeedadu marka waxa weeye in la mideeyo sportska iyo waxbarashada ciyaaraha la qabanayo oo inta tiro leeg oo loo xushay in loo qabto secondaryyaasha ama dugsiyada sare waxa weeye waad garan ka dhan muhiimadda laga leeyahay sababtoo waxa jira kalaabyadii ama naadiyaashii sportska ee gobolada ee horyaaladii marka waxa loo xushay dugsiyada sare in ay ka soo baxaan ciyaartooydu in la mideeyo waxbarashada iyo sportska tartankan ayaa wuxuu ka duwan yahay sida caadada ahay tartamadii sportska ee gobolada Puntland iyo kuwii naadiyada waxaana uu yahay mid iminka wajiga ugu horeeyay laga furay dugsiyada sare ee kaga qayb galayaan kubadda cagta si loo helo ciyaartooy wanaagsan ee wasaaraddu ay sheegtay inay qorshayaal dhowr ah u diyaarisay Shirmarka Maxamed Warsame Hon Cable TV magaalada Garowe